حطمي اليأس ولا تستسلمي، عبث الحزن بأحلام فتاة. ارفعي الرأس شموخا وارسمي بسمة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي qaaliga ah waa idin salaamay. magacayga waa raxma, halka aad naga daawanaysaan waa Malaak Channel. maanta waxaan ka hadli doonaa cashir muhiim ah oo anfacayo waalid kasta. waa muhiimada ay leedahay caruurta in cadaalad loo sameeyo. cadaalad markii laga hadlayo meelo fara badan ayaa looga hadlaa, ay kamid tahay qawaaniinta iyo xukunka duwaliga ah iyo qof kasta oo xil qabta haba yaraatee ama mas-uuliyad qabto, yani inuu cadaalad sameeyo. maanta cadaalada aan rabna inaan ka hadalno dhammaan way ka duwan tahay waxyaabahaas, oo waxay qusaysaa qoyska. caruurta in cadaalad loo sameeyo maxay muhiim u tahay? cadaalada horta micnaheeda hadaa sharaxno, cadaalad waxaa loola jeedaa waxa kasoo horjeedo jawrka ama dulmiga. sidoo kale cadaalad waxaa la dhahaa qof kasta inuu helo xaqa uu leeyahay, qofna inuusan waayin xaqiisa intii la kari karo. nabi maxamed sallallahu alayhi wasalam wuxuu leeyahay, ittaqullaha wacdiluu bayna awlaadikum. ilaahay ka cabsada oo ilmihiina cadaalad u sameeya. cadaalada ilmaha loo sameynayo halkan culimada dhowr ayay u kala qaadaan. waxaa jirto cadaalad siisma ah, yani siisma waxaa waaye wax nafaqadii waajibka ahayd ka baxsan. hadaa ilmahaaga mid kamid ah haddii aa wax siisid, waa muhiim kan kale inaa siisid. sida aad ka arkaysaan xadiidka nabi maxamed sallallahu alayhi wasalam uu ka warinayo nucmaan ibn bashiir. nucmaan ibn bashiir wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo hooyadiis iyo aabihiis ay aada u jecel yihiin. marka aabihiis ayaa wuxuu siiyey shay. hooyadiis waxay ka dalbatay nabiga sallallahu alayhi wasalam in la marqaati geliyo waxaan uu siinayo. nabiga markii loo geeyey wuxuu dhahay, ma leedahay ilmo kale aanan yani nucmaan ahayn? markaasuu wuxuu dhahaa, ma siisay sida aa wiilkan u siinay sidoo kale ma u siisay? markaasuu wuxuu dhahay nucmaan aabihiis maya. idan aniga jawrka ama dulmiga markhaati kama kalo, ee orod meelo kale la-aad. riwaayad kalea jirto oo dheheyso iyadane, soo ma jeclid ilmahaaga dhammaantood inay baariyaal ku wada noqdaan? haa, waan jeclahay. idan adigane yani siismada iyo waxbixinta waa inaa si siman ugu qaybisaa, yani waa inaa cadaalad ugu sameysaa. meeshaan markii la joogo oo wax siisma laga hadlaayo, culimmada waa isku khilaafeen. waxay yiraahdeen waxaa loo qaybinayaa lidakari mithlu xadi lunhayayn. laakiin anaga culimmada khilaafkooda muhiim manoo ahaan, xadiid saxiix ah ayaa meeshaan noo yaalo oo ah ilmihii in si siman wax loogu qaybinayo. kana hadaa wax u iibisid waa inaa kan kale wax u iibisid. mid kamid ah caruurtaada hadaa adig dhaqaaleysanta oo ilaahay oo wax guriba aa rabtid inaa kaari u iibisid, waa kan kale inaa u iibisid kaariga. culimo kalena way jirtaa oo dhahayaan lidakari mithlu xadi lunhayayn waxaa waaye waalidka markuu geeriyoodo qaabka dhaxalka loo qaybinayo. dhaxalka aslan fowqa 7 samaawaad aa laga soo qeybiye. muhiim qasab ma ahan in laga hadlo, wax laga doodi karo ama hadal la gelin kara ma ahan. laakiin waalidka intuu nool yahay waxaa waajib ku ah ilmihiisa inuu cadaalad u sameeyo, waxbixintana uu ku simo. taas qodob waaye. qodobka labaad waxay tahay nafaqadii sidee ayaa cadaalad loogu sameynaya? nafaqada markii laga hadlayo waxaa waaye qof kasta baahida uu leeyahay ama inta nafaqo uu u baahan yahay inuu helo. tusaale ahaan, ninkan 2 reer ayuu leeyahay. reer hore u jiri jiray oo ilmo waaweyn ah iyo reer yaryar ama gabar yar oo hadda lasoo gursaday, lagaba yaabo inaysan ilmo dhalin, yani isku nafaqo iyo isku biil ma noqonayaan. meeshaan oo kale waxaa jeclahay inaa idinkugu cadeeyo ama idinkugu sharxo waxaa la dhahayo alcadaala walmusaawaa. sinaan iyo cadaalad, yani inay farqi u dhexeeyaan. si fiican aa ugu fahmi kartaan.
cadaalad markii la dhahayo waxaa waaye labadaas qoys yacni baahiyaha ay qabaan yacni qof kastoo baahida uu qabo in loo buuxiyo ama labada reer baahida ay qabaan. reerkii hore oo kale ilmo waaweyn u joogo jaamacad iskuul dugsi inay dhiganayaana laga yaabaa waxyaaba dheeraad ay u baahan yihiin waa inay helaan. reerkan way cusub yihiin ama hal ilmo oo yar ay haystaan ama maba haystaanbo ayagana biil ku filan waa inay helaan. marka ma la dhahayo waa in sinaan la sameeyo oo in reerkan haddii 200 ama 300 la siinaayay gabadha cusubna waa in 300 la siiyo. haddii 500 ay qaadanayeen gabadha cusubna waa in 500 la siiyo. lama dhahayo waa cadaalad in loo sameeyo iyo dhammaan ilmaha in yani saas oo kale cadaalad loogu sameeyo. waxaa jiro mar walba inaan aragno dadka u doodo xuquuqda haweenka inay ka hadlayaan sinaanta aslanba waa dulmi la dulminayo gabadha iyo ragga waaye. insha allah mar ayaa kasoo hadli doonaa wax loo yaqaano alxaraka nisabiya iyo waxyaabaha ay qabtaan iyo ahdaafta ku racan ilay. qodob kale jiro oo isagana muhiim ah wuxuu yahay yani cabirid dareen ama waxyaabaha la xiriiro mashaacirta iyo cawaadifta qofka ama waalidka inuu cabiro dareenkiisa. ilmaha waa laga yaabaa inaad kala jeclaatid sababtoo ah way ku kala nugul yihiin oo mida aad wax kaaga maqlayo mid kale wuu kugu madax adag yahay. taas ayadoo jirto haddana waxaa la rabaa inaad cadaalad u samaysid. oo maxaa cadaalad ka sameynay? cabirid dareen yani ilmahaaga dhammaantood inaad jacayl u wada muujisid waajib ayay kuugu tahay. waa qalad in midka adiga aad jeceshahay mar walba aad soo dhaweysatid aad hoosta gashatid aad u dhunkatid asiga leh macnaha qariib aad ka dhigatid. taas sax ma ahan. ayagoo kuwa sineen oo qalbiga ku sineen haddana waxaa la rabaa wax allaale wixii ficil ah oo la awoodi karo in lagu sameeyo. sidoo kale waxyaabaha mashaacirta la xiriir waxaa ka mid ah dhunkashadii يعني ilmaha midadkan hadaa dhunkatid kan kale inaa dhunkatid. waxaa kamid ah waxyaabaha mashaacirta la xiriiro amaanta ilmaha inaa isku si ah wada amaantid. midna ma aha inaa habaar caay qaylo inaa la dul taagnaatid midka kalena aa amaantid oo yani si fiican u dhiirigelisid. taas waxaa ka dhalanayo in yani ilmaha hadhow aysan kuu sinaanin markii ay weynaadaan. sababta aniga wax u barbaarinayno oo ilmaha usoo saareen waxay tahay ilmaha marka anaga aadhimano kadib inayna anfacaan ee noo soo duceeyaan. adduunkana dad saameyn leh oo bulshadii haddii wax u qabanayaan ay noqdaan dad bulshada cadaalad u sameyn karo dad guryahooda cadaalad ku dhaqi karo inay noqdaan u baahannahay. laakiin adiga haddaadan marka hore cadaalad sameynin baarinimana ma yeeleysid qof yani maasha allah oo bulshadii saameyn ku yeelan karana ma soo saaraysid. waa muhiim marka in ilmaha cadaalad loo sameeyo. sidoo kale waxaa jiro qodob kale oo isagana muhiim ah oo ah shaqadii ama waxqabadkii. ilmahaaga adi aad dhashay midna inaadan ku xamaalanin midka kalena aadan dhihin ha loo xamaalo amase ha loo shaqeeyo. waana dhibaatooyinka inta badan ka taagan guryaha soomaalida. ninka soomaaliga ah wuxuu isku arkaa asiga inaanan loogu talagelin shaqo sababtoo ah guriga lagama soo barinbo. waxaa laga yaabaa gabadhan iyo wiilkan inay waxbarashada isla aadayaan subaxi ay isla baxayaan isku fasal ay yihiin isku maadooyinna ay soo qaadanayaan. laakiin gabadhi markay duhurka ayadu daalan imaato iskuulka imaato ninkan waxaa laga yaabaa ama wiilkan inuu wareegiska aado ama waxyaabo kale uu sameynayo xataa ama cashiradii uu akhrisanayo gabadhana jikada ee u gasho ee qado u kariso. sidoo kale subaxii inay kasoo horkacdo ee quraac u diyaarso taasna sax ma ahan. yani waxaa loo baahan yahay in cadaalad laga sameeyo ilmaha aad dhashay hoosha guriga inaa yani si siman inaa ugu wada qaybisid. insha allah waxaa rajeynaya yani taas dhaqan hore ahayd diin kuma taalo. gabdhaha hadda soo baxaya ama hooyooyinka anigoo kale ah yani in ay wax badan ka bedeli doonaan dhaqankaas oo ilmaha ay dhalin cadaalad ay u sameyn doonaan. waana sababta ninka soomaaliyeed mar waliba gabadhiisa markay umusho ama ilmo ee dhasho looga soo kaxeynayo oo guriga hooyadeed looga soo kaxeynayo oo guriga hooyadeed loo keenayo. gabadhay haddaa dhashid guriga ninkaaga joog ha kula joogo qolka jiifka dhinaca ka joogo. habeenkii markaa daalan tahay oo ilmihii maanta oo dhan aa soo heysay ha kula haayo dhibaatada yani ha dareemo. laakiin anaga dumarka soomaaliyeed haddaan ahnay waxaan siinay
fursad ragi, fursad keligiis uu guriga ku joogi karo, kii saqajaan ene uu naag kale ku keensan karo, kii kalena uu ku shukaansan karo 4 saac uu naag la hadli karo. Ma fahantay? Gurigaaga joog, howsha guriga taala dhinaca ka qabto, ilmaha waxa ka hayo dhibaatada iyo yacni culeyska umusha ee leedahay ha arko. Ninka Soomaaliyeed gabadhiisa marka isbitaalka ku foolanaysana ma joogo, uu ka maqan yahay. Marka ee dhashana guriga hooyadeeda la sii geeyaa, markay walaca tahay ee tagtaa, markay 9 bilood ama bilooyinka u dambeeya ee maraysana guriga hooyaa lagu sii diyaariyaa. Intaas waxaa siisa jaanis fiican uu ku adeegan karo, magaalada uu uga adeegan karo, wax uga qabsan karo. So marka gurigaaga joog, gurigaaga ku dhal, ha ku caawiyo, hana dareeme yacni dhibaatada meesha ka jirto. ninka marka wuxuu u maleynayaa howshaan oo dhan hool oo iska simple ama raaxa inay tahay, ilaa maba arkinba, waxba ma arkin weligiis. gabar nadiif ah loo keenayaa, gabar nadiif oo umush ka soo baxday oo maasha Allah wax walba dhag laga soo dhigay aa loo keenayaa. Intuu ka qadarinayaa culeyska ama dhibaatada aad dareemaysid ma fahmi karo. So marka igaraal noqda ciwaankaas ma rabin inaad dhex galo, laakiin arrin muhiim ah oo waaqiceena ka jirta waaye oo mudan in laga hadlo. laakiin hadda waxa ka leena cashir ka duwan cashirkaas cashirkeena u soo laabano. Sorry, aad ka yaraali karinaya meel kale idinla galay. Marka maxay muhiim u tahay ilmaha in cadaalad loo sameeyo? Waxay muhiim u tahay qodobadan soo socdo. qodobka ugu horeeya waxa waaye in la helo shakhsi wanaagsan oo mujtamaca saameyn fiican ku yeelan karo. qodobka kale waxa waaye in la abuuro walaaltinimada saxda ahayd oo hadhow ilmaha markay weynaadaan ay garab isku noqon karaan. sababtoo ah in badan waxaa aragnay dad isla dhashay ama kalabaha ahaadaan ama iskubaha ahaadaan oo hadhow waalidka markuu meesha ka baxo istagaalayo, cadaawad dhex daaro, xiqdi ka buuxo, aanan iskarabsanaynin, kooda wax yar sareeya uusan caawinayn kan daciifka ah. mujtamaca Soomaaliyeedna way ka buuxaan. social media anoo ku jiro gabar Soomaaliyeed oo aad u cabaadeyso, kana cabaneyso walaalaheed la dhashay iyada oo ku hooyo ku aaba ah, xataa kalabah ma ahan, yani dulmi ay igu sameeyeen ee leedahay sida iyada sheegtay. hooyadey markay dhimatay waxaa ogaaday yani inaanan walaal lahayn, karab haysanin. taas maxay ka dhalanay? yani waa waxyaabo badan inay jiraan way iska dhici kartaa. marka mar walba muhiim waaye ilmaha in cadaalad loo sameeyo. qodobka kale waxay muhiim ugu tahay in la soo saaro qof caadil ah, li'annu qofka isaga markii cadaalad loo soo sameeyay mujtamaca hadduu mas-uuliyad ka qabto ama xil ka qabto, waxay noqonee tacaamulaadkiisa iyo shaqadiisa dhan inuu cadaalad ka sameeyo. qof aanan corruptionka aqoonin iyo isdabamariska oo caadil ah uu noqonaya. qodobka kale oo muhiimka ah waxaa waaye waxay keenaysaa yani qofka in uu baari noqdo, uu hadhow markuu weynaado waalidkiisa uu baari u noqdo. qodobadaas waxay ahaayeen muhiimadda ay leedahay ilmaha in cadaalad loo sameeyo. hadda waxaa ka hadli doonaa natiijada ama saameynta ay yeelan karto haddii aanan ilmaha cadaalad loo sameyn. kow, waxaa ka dhalan karo shakhsi xuquuqda ah oo qiiro ay ka buuxdo, yani aad ugu maseero walaalihiis iyo dad isxasdaayo oo walaalo ah. waa wax aad u dhib badan waay. qodobka labaad waxaa waaye in la helo qof anaani ah, qof yani dadka kale aanan danka lahayn. waana sida mujtamaca Soomaaliyeed ay u badan yihiinbo. waxaan ugu badan sheyga la dhahayo maxaa iga galay, bal adiga hadee wax kaa galan iyo wax ka galeen. sidoo kale waxaa sameysmayo shakhsi cudwaani ah oo yani necab dadka, walaalkiis kale yani xasad u haayo, qof noocaas oo kale ka dhalanayo. qodobka kale oo muhiimka ah waxaa waaye qofka in yani uu dareemo kalsooni daro ama qof daciif ah inuu yahay, dadka kale aanan la sinayn, dadka kale aanan wax la qaybsan karin. sababtoo ah waxaa lasoo dilay oo lasoo baabi'iyey qofkan intii uu yaraa oo shakhsiyadiisa la dhisi lahaa, oo kor loo soo qaadi lahaa, oo dad laga dhigi lahaa. ma ogtahay qofka
yacni xoogaa wax un ka dhiman yihiin oo si ah in kor loo qaadi karo oo haddii lagu dadaalo qof oo maasha allah ay laga dhigi karo. sidoo kale qofka maasha allah oo wanaagsan in la baabi'in karo oo eber laga dhigi karo ilaa uu noqdo wax aan waxba ahayn. marka adiga dooro waalid oo ilmahaaga sida aa rabtid inay kuu noqdaan. sida aa rabtid inay kuu noqdaan waa sida adiga aa ula tacaamulaysid. qodob kale oo muhiima jiro iyadana waxaa waaye in yani uu kasoo baxo qof caasi ah ama caaq ah ama caasi waalideyn ah hadba sida taqaanid. ilaahi subxaana watacaala wuxuu leeyahay waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira. sidoo kale ilaahi subxana watacaala wuxuuna amrayaa in waalidka mar walba u jiracsanaano oo yani isku duleyno oo hadal kulul aana ku dhihin. yah marka taas waxay ka dhalanaysaa in marka adiga aa dhalinyarada tahay oo ilmahaaga aa barbaarinaysid aa awoodda leedahay in cadaalada aa u samaysid, tarbiyadooda inaa ku dadaashid, ilaahi subxaana watacaala inaa mar walba la gaashatid, sujuuda inaa ilaahay ugu barisid. waxay keeni kartaa insha allah markaa xoogaa awooddaada yaraato oo qof weyn aa noqotid ilmahaaga inay kuu noqdaan ilmo baariyaal ah. insha allah waxaa rajeynayaa fariintii aan waday inay idin soo gaartay oo kiliibkan wax badan aa ka faa'iideen. waa mahadsantihiin, aad kaaga mahad celinaya ilaa dhammaadka sidaa usoo gaarteen oo mar walbo hadalada wanaagsan ay igu soo qoreysaan iyo dhiirigelintiina waa idinkaaga mahad celinaya. waxaan jeclaan lahaa intaan inka badan inaan gaarno oo meelo badan uu gaaro janaalkeena, sababtoo ah janaalka hadafkiisa waxaa waaye in mar walba uu caawiyo hooyo kasto iyo gabar kasta oo caawimaad u baahan. hadday ahaan lahayd in wacyigeeda la dhiso, in la baro qaabka ilmaheeda ee u tarbiyeysan lahayd, in la baro sida u noqon lahayd hooyo wanaagsan. insha allah idinkan waxaa rajeynayaa in mataqaana saasoo kale ii garab istaagi doontaan. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.